ilaa uu la rido aka xabadda ku dhacda dartaan marxuumka wajiga waxbad kaga dhacday kilada intoo gashto saas u carraa hadda mar iskoolada dhulka taala dhacday miyaa macna dhulka dhacday haa markaa saas u fiirisid taabashadeeda baashaan aad ay u adag tahay laba baalota oo digniinaan ku riday istaagan dhahay oo isoo fiiriyey oo istaag diiday hore u sii socday fiir isdhahay ninka xabadda miridan anay igu taali xabadda maalintan taagtaag ayaa u shidhnaa 58 sano jirkan ka tirsan ciidanka ilaalada waddooyinka oo si qalafsan gacan ka hadal leh kana baxsan waajibaadka loo diray kula kacayay darawallada gaadiidka oo xilligaasi la dhibanaa saxmad iyo cidhiiri ka jiray isgoyska Shaneema Nasri ee degmada Hodan xidigle Bool Axmed Maxamed Cabdulle oo ah sargaal muddo ku dhow 20 sano ku dhex jiray howlaha ciidanka ayaa taliska ciidanka ilaalada waddooyinka ee taraafiko ugu qornaa isgoyska Shaneema Nasri waxaana maalin ay ku beegneed 26 bishii 11aad 2025 saxmadna ay ka jirtay halkaasi uu la soo baxay habdhaqan baalmarsan sharciga aflagaado ay la socoto jirdil iyo ficilo kale ayuuna kula kacayay wadayaasha gaadiidka marxuum Ayuub Maxamed Abuukar oo wada mooto bajaaj ah goobtaasna ku sugnaa ayuu si aan kala joogsi lahayn ugu garaacay bir uu watay markii uu ka falceliyeyna waxa uu madaxa uga dhuftay baalooto uu ka riday bastoolad teete ah oo sababtay geerida marxuumka xabadihii jirkiisa ka gudbay ayaana dhaawacay dhibaneed Najma Cabdiraxmaan Faarax oo waxyeelo ay ka soo gaartay lugta eedeysanaha oo gargaar aan u fidin dadkii uu dhibaateeyey ayaa isku dayay inuu baxsado sida ay duubtay maragmadoontada kaamirooyinka amniga balse dadkii shacabka ahaa oo goobtaasi ku sugnaa ayaa ka daba cararay eedeysanaha uguna wacay ciidankii ka howlgelayay jegboontiga Shaneema Nasri sidaas ayayna ku suurta gashay in lagu qabto eedeysanaha eedaasi ma gashay mise ma gelin dad ka qabtaa aad dilka waa galay kama waa ma kasna ma ahayn meesha waa zaxmad zaid ahayd anoo jooga leeyahay soo wada galeen ninkan waa soo degay marka waa ila dagaalay waa kala tuuray bastooladii dhulka dhacday dubi isaga isfuray markii soo gaada ma qayb hadii habadii ninka waa ka fakatay waka iskoolada dhulka taala dhacday miyaa macna dhulka dhacday haa ay dhulka dhacday waxa yar abaara taalay markii waa soo qaday sayshad ma taaban ba aan soo qaadan habadii waa ka dhacday dubi isfuray waa ka fakatay macna haa waa iga faktay dhaawacna ma arkin ani hooga argagaxay meesha waa ka aragay maadan qaadin dadkii ma qaadin dhaawacay marka maxaa biskoolada ka tuur marka hore ani daalan ahay marka hore telefoonka shaqa ka soo bilaabay soo kala furay masaariidan soo maray soo kala furay meeshaas oo jaamay imaaday shaqadeen waxa yar dhimneed ma la gaarin marka meeshii dadkii joogan caawiyay waa furay salaadan soo tukaday soo noqday hadana meeshii sidii iska daran ay tahay meeshii imaaday nimankan joogan dheer maran siiyay waa wada qaldan ay ka soo galeen shaqadii hor istaaga laga sameeyay anigoo jooga leh soo galeen marka ninkan waa ii soo degay dharka tawaaja jaxmi waa arki kartaa waa la kala tuuray bastooladii dhulka dhacday dubihii is furay waa isdagaashay ma qofka waa buuqdeen ma hay waa ii soo degay mooto waa ii soo degay ammaanka biskooladii afur markay dhacday ayaa is furay dubihii ana waa ii xirneed markii aan soo qaadayna maartay dubaha maartay inuu xirnaa qabay saas xabadii ka baxday gadoomiye meeqa mar lagu xiray weligeena ma xirin ani waka qofka dhaawacana muxuu ahay dhaawac ma arkin ani askarigii qabtay eedeysanaha ayaa maxkamadda uga warbixiyey qaabkii gacanta loogu dhigay sargaalka dirka geystay gudoomiye horta isgooska aan shaqo ku hayo ani markaas isgooska Shaneema Nasri dhacdada markay dhacaysay goobjoog uma ahayn laakiin maana eedeysanaha soo qabtay laakiin meesha isku qabsadeen warka ma hayo eedeysanaha waa baxsay miya eedeysanaha baawaran baarayni anoo baawar baaraya unug yaro oo adidaadan oo 18 meelahaas ah ordayo ii yimaado oo lin dilay cararaya qabo ani marhuumka xaqiis ma aadin marka eedeysanaha xaqiisa aaday ani iyo lin kale oo saaxiibadeen nasi ku tirsan oo baawarta baarayni ani marka qorigayga haystay asaga qori la'aan u ahaa ani linkii xaqiisa oo aray asagana qoriga raadsaday gadaal u aray link marka ani unugi warka ay soo daba kacay asagana unugi yaraa isgooskii dhinac u orday waa ka war meesh jam zaid ah ku jira waa ku wareer marka linka dharka wata hata ma ogeyn unugi soo laabtay waxa ay linka dhar saac wata aan dhahan dhar shibil ma wata mas dhar tuuta wata wuxuu yiri traffic waay waan aray meesh digper maxal jir Soomaali Suudaanis ilbaabkiisa soo sii maraya korka arkay laba baalotaan ku riday waxa ay istaag laba baaloota oo digniinaan ku riday istaagan dhahay oo isoo fiiriyay oo istaag diiday hore u sii socday laba kalaan ku riday oo yiri istaag markaas ani waxaan isdahay ama mooto raaca isdahay mootooyinka markay baalootinka aan riday jidkii waan noo baneeyay marka baawartii dadkii waa istaagan aniga isku harnay labadii baalooto dambe markaan ku riday qoriga markii iga mataanay marka oo laba baalooto inta hal mar qaatay oo ku dhigay
anoo qoriga habadii foojina aan daba socdo oo istaag dhahayo sii socdo oo qoriga aan habadii ka saaray calinkii kala saaxiibkayga ahay baabuurta ila baarayo qori raasada iga daba imaaday goolad markii oo Soomaali Suudanes ilbaabkiis markaa wax yar dhaaftay goolad uu saan u gal goolad markuu galay cunugii kale oo nabasuud ahay iga daba imaaday asiga qori dhab ku siiyo isagan oo yiri habad markuu dhufanayna ma soo istaagay markii uu istaagay oo yiri waa istaagay nin kale oo asagana oo sacbooli ah oo traffic ah oo asagana oo asaga tali u ahaa anaga daba imaaday oo yiri tali isdeji maxaa kugu dhaca isdeji ninkii uu dirnay waxa yiri bistoolada ku soo qaad bistooladi iyo gaankii biliiska sidii uu soo qaaday waa soo wadnay asguuskii keenay saraakiishan ku wareejiyay meesha nooga imaaday antaas aan goobjoog u ah asaga isgoyska ku qoraa miya asguuska ku qornaa taliyuhu u ahay taliyuhu meesha uu joogay ahaa ay traffic ma taa maya isguuska asaga traffic waa marka cunug yaro ku sheegayo cunug yaro oo 18 jir ka ah oo shacab ah oo aan baawur baaraya ay soo dul istaagay lina lin dilay waana araray anaga mes jamsa ida ku jira habada taa ma maqlin waan noo dhaweeyay kaamirada hoosteedaan ahayd meesha link ku dhantay habada taa ma maqlin oo markii aan ka daba araray markaan sidii aan ugu daba araray aan soo qab ninka markaas ma ogaano inuu sargaal yahay waa ogaay meesha uu ku qornay waa aqaana meesha isku barnay axmed markii aad qabanayseen wax dagaal ah kuma sameeyay Soomaa wax dagaal ah ma sameyn goobta markii aad tagteen jaam iyo zaxmad baa ka jirtay Soomaa jaam saayida ku jiray su'aashu dumeysa waxay tahay waad ogaatay Soomaa inuu ku qornaa goobta ayada oo shaqada asaga ku qornaa waad ogaatay waan ogaay ku qornaa waa maasan dhibbanad Najma Cabdiraxmaan Faarax ayaa garsoorka uga warantay dhibka gaaray iyo sida ay wax u dhaceen noonu geenahay meesha caasiyaasha laga raaca Arabina ka raac baabuur inta meeshas gaarin xabadu ay ku raacday maxaa qabataa adiga maxaa taa ani ardayda ah maxaa bartaa jaamacada dhigta caafimaad bartaa jaamacada markaa ka soo baxay exam galay examka ay dhamaade isbitaal Digfeer waxa ku soo booqanay gabadha walaalanahay gabadhi markaa ka soo baxay waxa soo xaafadana u soo socda markaa soo dhaafay maqaayada Jazeera wax yar markaa soo dhaafay waxa arkay laba nin oo iseestaan korka arkay markoo ninkan jeebka oo gacanta la aad waxa isdhay xabad amuurida mootaas oo gambade fiir isdhaa ninka xabad miridan anay igu taali xabada mootada yarka oo xabada ku dhaceysay mootadiisa ma saareen miyaade ma saarnin ani wadada socday bis intee wax ka gaareen marka lugta midig jabaa jirmay xaaladda lugta ka warbixi hadda lugta xogaa way iiroon tahay sida hore mi xanuunayso markooka waxa ku jiro bira ku jira bira ku jiro maxkamadda joogta maxaa ka dalbanay maanta waxaa ka dalbanay ninkaas in xaqii laga qaado qaabka u taagan yahay wuxuu wataa bistoolad iyo ushii booliiska loogu talagalay waa birtaas ayuu dadku ku garaacayaa oo qof walba uu ku celinayaa waa kan gaarigan mootada waa kan muraayadu ka garaacayo soo u garaacayo waad aragtaan odayaal ayaa ka soo degaya odayaasha xataa ma tixgelinayo bistooladda waa kaas hadda la soo baxayo qof walba inuu ku waabiyo rabaa taargada haddana fujisanaya taargada waa ujeedaan qaabku u dhaqmayo odayaashii la hadlaya saas uu la dagaalamaa waa aragtaa qof walba oo meesha marayo ushaas uu ku garaacaa mootadana waxay taagan tahay mootada waa hadda gacantiisa midigta ka muuqato mootooyin kale fara badanaa ka dambeyso gadaalna uma bixi karo hoolna uma bixi karo mootada ayuub uu wada waaye qofkii saas u garaacaya oo marba u garaacayo waa aragtaan ushu isticmaal waa kaas mootadii kale haddana uu ku garaacayo birta uu wato inuu kilida ka geliyo oo ku juqeeyo macnaha oo mootadan dhabarkiisa ku aadan oo qaybta dambe ka muuqato ayuu saaran yahay marxuunka mar walba wuxuu isku dayaa inuu bistoolada soo baxsado sababta qof la dagaalamay ma laha laakiin isaga yaa dadka garaacaya oo mar walba dagaalkaas iyo sameynaya waa qofkii booliiska ahaa oo wadada loogu talagalay sababta waxaa la rabaa oo keliya inuu sul dhabaaleeyo ama macnaha qofka tilmaamo oo keliya laakiin inuu gacanta la aado qofkii garaaco tumo ma ahayn shaqadiisa qof walba oo meesha maro ushaas ku garaacaya ama birtaas waa aragtaan adeesaniyo hadda ku dhuftay mar labaad haddana ku dhufanaa mar saddexaad haddana kilada ka gelinaya waa kaa saas uu garaacay waa bir wax uu ku garaacayo birtaas uu ku garaacay ilaa uu ka xanaaqo soo degtay iga jooji uu yiraahdo sidoo ugu wadaa waa kaas iga jooji ilaa ushas sababta wuxuu ku garaacay waa birti bistoolada soo bixinaa wejiga kaga dhufanaa oo marka hore ku dhufanaa mar labaad waa ka dhacday markaana hadda tooganaa marka saas uu gacanta u qabto wejiga ka dhufanaa inta halkaana laga arki doonaa waa kaas uu garaacay iga jooji uu leeyahay ilaa uu la rido waa ka xabadda ku dhacda dartaan marxuumka wejiga waxbad kaga dhacday xataa bistooladii waa ka hadda ammaankii isoo xiraya marka hore ugu talagalay inuu ammaanka furo hadduu xiranayaa waa kaas uu afuufaya
kilada intuu gashto saas u carraa hadda marka dharkii ay iga jajaxmay uu leeyahay maadaama qof cayilan uu yahay wadooyinka oo xoog u maray mootooyinkaas meelahaas isku xiriirinaya mootooyin dharka ka jajaxay sidaas uga cararay sababtoo ah qofkii uu dilay meeshan kama nuusan qaadin arxan muusan samaynin dhaawacii xabadii ku dhacday marxuumka ayaa gabadhana dhaawacday marxuumka waa kaas naftii xataa dhulka kulama dhicin sababtoo haddii xataa ama kora u riday ama dhilahay muusan ahayn baare ka socday taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir laba xidigle Jimcaale Carab ayaa natiijada ka soo baxday baaristiisa ku faahfaahiyay maxdarkan halkaasi markay marayso eedeysanaha wuxuu ka tirsan yahay booliska gaar ahaan hoggaanka nabadgelyada wadooyinka kaasoo shaqadiisu ay tahay inuu wadooyinkii furo gaadiidkii iyo jaamkii uu kala yareeyo halkii taasi shaqadiisii ay ahayd wuxuu bedelkeedii ku bedelay eedeysanaha maanta maxkamadda hor taagan in muwaadiniintii wadada maraysay ee jaamkii iyo la rabay inuu u adeego wade mooto bajaaj oo halkaasi xabad dil bareera ugu geysto oo uu madaxa uga toogtay xabadii ka baxday marxuumka geeriyooda ayaa waxay ku dhacday gabadha dhibanada ah maanta horteena taagan iyadoo ay weliba ka timid jaamacad oo ay lahayd goob waxbarasho ay ka timid una socotay gurigeedii taasoo hadeer waxbarashadeedii gaab galay isbitaal gashay waqtina ku baxay sidoo kale marxuun xaq u lahaa in uu noolaado oo sii shaqeysto awlaadiisii iyo familkiisii maareeyo ayuu goobtaasi naftiisa ku gooyay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh dhacdadaasi oo ka dhacday degmada Hodan oo uu eedeysana ka yahay eedeysanaha sarkaalka booliiska ah ee maanta maxkamadda hor taagan waxaana goobtaasi falkaasi uu u geystay labada dhibane marxuumka iyo gabadha dhibanada ah markaan baaris iyo natiijo fiican ku sameynay oo aan kiiskan si qoto dheer aan u baarnay waxaa noo soo baxday oo aan baaristeena ku ogaanay in dambi dhacay dambigaasina uu geystay eedeysanaha maxkamadda hor taagan kaasoo ah dil bareer ah iyo dhaawac aad u culus maxkamaddu waa mahadsantahay bastoolada falka lagu geystay qaybtan dambe oo hadda uu sheegay hamarka la yiraahdo ama dubaha wuxuu sheegay inay haleysneed ma jirtaa ma jirto maya anaga baaristeena kuma aan ogaan in bastoolada haleysan tahay marka saas u fiirisid taabashadeeda baashan aad ay u adag tahay moola adaga ku jirto waa loogu talagalay inaysan isfuran si fiican jooga uu ka riday ama uu dhahayo waa ka dhacday ma furi kartaa baashan maya maxkamaddu waa mahadsan tahay maxkamadda sidoo kale waxaan ka codsanaynaa iyada naftirkeeda inay maxkamaddu fiiriso inay bahashaan si sahlan ku furmi karto aysan ku fulmi karin inay dhacdo iska dhaafo dhulku dhacdo maxkamaddu waa mahadsan tahay maadaama dhimashay dhacday markii hore dhimashada baaristeeda abaarta Soomaa maya dhaawaca gormi ogaatay ku soo gaaray isla taariikhda qiyaas ahaan inta isku jireen marxuumka meesha ku dhacaya gabadha meesha ay mareysay maxkamadda masaafaan u sharax ama tilaabaan intay taawo waa mahadsan tahay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh haddaan u sharaxo wadada aad ayay jaam u ahayd oo saxmad ay ahayd bacdama ay saxmad ahayd oo wadada ay aad jaam u ahayd mootooyinkan ay aad isu daba taxnaayeen eedeysanaha halkaasuu taagnaa marxuumka halkaan oo kaleeto mootadii geeskan kaleetana mootooyin iyo dadkii socday qaabka saxbada ugu dhacday gabadha wax badan isuma jirin masaafo dheer isuma jirin goobta markaa tagtay ka soo tag marxuumka ma soo hesha qof ka soo heshay meesha wax ka dhaceen maya ma jirto Soomaahan baare fooq intaad qaaday forensiga qaybta CID loogu talagalay in lagu baaro hubka aad geysay ku soo xaqiijisay oo la soo cadeeyay gabadha buskoolada ku dhacday ama gumaca ku dhacay iyo buskooladan eedeysanaha way isleeyihiin ma jirto Soomaa maya waa mahadsantahay maxkamaddu waa mahadsantahay gaashaan la dhexe Axmed Iimaan Maxamed ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho ah qisaasta marxuumka iyo bixinta magta dhaawaca gaaray dhibanad najmo mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan hor keenay marqaatigii soo qabtay markii dhacdada dhacday intuu ka baxsaday goobtii waxaan hor keenay CCTV camerada oo been sheegtada oo muujinayay dunuubuhu galayay marka hore inuu goobta ku sugnaay oo shii loogu talagalay birta ahayd uu isticmaalayay dadka uu ku garaacayay
taraafikada ahaana loogu talagalay inay tilmaam ahaan ay ku isticmaalaan ama macnaha ku jiheeyaan ayuu dadka u isticmaalay inuu garaaco. ilhaanaduu sameynayay qof iska sii jeedo, gadaalna mootooyin kale ka xigay, horena mootooyin kale ka xigay. wuxuu isku dayay qofkii inuu ka xanaajiyo, garaaco ilaa uu ka soo dego meesha. wuxuu ku dhuftay bistooladii, wuxuu ku garaacay haddana ushii, wuxuu haddana madaxa ka dogtay. qof sargaal ah, weliba askari maaha, waa sargaal oo booliis ah, goobtii xataa kamuusan qaadan, arxan umuusan samaynin. orodku uu sameynayay iyo fakaartada u galayay waad arkayseen qaabka lagu soo qabtay. sidaas daraaddeed maadaama guddoomiye aan keena markhaatiyaal kiiskan uu cad yahay, dhibanadii ay sheegtana waxaan rabaa cadaalad. dhibka i gaaray gabar jaamiceed ah, wax baranaysay, waxbarashada xataa hadda waxay ka noqotay qabyo ahaan. waxaan ku soo eedeynay aayadda 178 ee suuratulbaqara iyo aayadda 45 ee suuratulmaa'ida iyo qodobka 434 oo ah dil, kuwaasoo dhammaantood sheegayo qofkii qof dilaa sharciga iyo shareecadana ay ogoshahay in la dilo. waxaan kaloo kusoo eedeynay 440 baaragraf 2 oo dhaawacaas oo dhibka ah oo u geystay gabadhaas u geystay. waxaan kaloo kusoo eedeynay 450 oo ah inuu u gargaari waayey qof boliis ah oo sargaal ah oo dhibaatadaas haddii xataa kaga noqoto xataa inuu gargaar u fidiyo ayay ahayd. meeshaas goobta ogaantay oo duhurka ogaantay dhiigbaxaas uu dhintay. sidaas daraaddeed maxkamadda waxaan ka codsanayna maadaama in dilka uu geystay in lagu xukumo dil toogasho ah oo ah qasaastii ayuub maxamed abuukar iyo dhaawacaas lagu xukumo. maxkamadda waa mahadsantay. qareenka eedaysanaha ayaa ku dooday in dilkan kama u ahaa heshiisna ay ka gaareen ehelada labada dhinac. muwakilkiisa ayuuna u dalbaday in la siiyo xorriyaddiisa. waxaan qareen u ahay oo maanta maxkamadda kiiskiisa hortaallaa axmed maxamed cabdulle oo xafiiska xeelaanintu ku soo eedeeyey qodobo kala duwan. mura guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh, ma doonayo inaan muwakilkayga sharciga ka difaace, waxaan doonaya inaan sharciga ku difaaco. intaasi kadib waxaa loo soo jeediyey wakilkayga axmed maxamed cabdulle qodobka 434 440 oo laba qodob culculus ah, dil kas ah iyo dhaawac culus lagu soo eedeeyey. markaan fiirino eedda la hor keenay maxkamadda iyo caddaymaha maxkamadda la hor keenay muna guddoomiye garsoorayaal, ma ahan eed lagu soo eedeyn kara ama uu mutaysan karo axmed, ma ahan. sababtu waxay tahay xafiiska wuxuu 434 u cuskaday laba falsafadood ama laba aragti u cuskaday. midda koowaad, xafiisku wuxuu aaminay falkaasi dhacay in dil kasa uu ahaa, taas oo ay tahay aragti asaga u gaar ah oo wax aysan la jirin, macluumaad dheeri aysan la jirin. midda labaad, xafiiska wuxuu caddeeyey oo caqiid ahaan kan ugu soo gudbiyey dilka in uusan noqon karin kama inuusan noqon karin, keliya uu noqon karo kas uu noqon karo. marka aan fiirino markii loo akhriyey eedaysanaha, markii loo akhriyey eedda loo akhriyey si waafaqsan qodobka 104 wuxuu ku jawaabay dilkaasi waan galay, waan qirsanahay, laakiin kas uma geysanin, kama abuu iga ahaa. waxaa xoojinayo daliil u ah haddii aysan jirin ku talagal, haddii aysan jirin, haddii aysan jirin wax khilaaf ah ama aragti gaara ama ujeedo gaara oo ka dhaxaysay eedaysanaha iyo marxuumka dhintay, allaha u naxariistay. haddaysan jirin wax uu kaga duwanaa marxuumka dadkaasi shacabka ee waddadaasi loo furayay oo loo adeegayay ee boqolaalka ah, wax uu kaga duwanaa oo gaar la ah haddaysan jirin, ma dhici karto dil kasta inuu geysto. su-aasha meesha taashaa waxay tahay dil ma jiraa? haa, dil wuu jiraa, laakiin dilka jiro yaa waxaa rabaa inaan ka istaago dhinaca xafiiska uu ka istaago, maa inaan dhinaca anigana ka istaago, oo micnaheedu tahay marxuumka dhimashadiisa allah u naxariistay maxaa sababay. muna guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh, markaan fiirino sida ay wax u dhaceen
caddaymaha la soo gudbiyey iyo qiraalka eedaysanaha oo la xafiiska laftiisa maanta kan ku ictimaadayay markaan fiirino waxaan oran karnaa kaliya annagoo weli cuskanayna qodobka 124 ee xeerka ciqaabta oo qeexayo qofkan ujeedada ama maqsadka uu markaas doonayo natiijada ka dhalatay hadday ka sarreyso falkaasi wuxuu noqonayaa fal kama uu noqonayaa eedaysanaha oo soo tagay oo waajibaadkiisa gudanayo oo u soo baxay inuu bulshada u adeego sida laga horsheegay maxkamaddana 3 jagbooti ama 3 isgoys soo furay isgoyskii saddexaad uu imaaday awoodii uu adeegsaday marxuumka iyo bannaanka uu iskeenay iyo dhagacadayga uu sameeyey yaa waxaa ka dhashay isqabsi asaga ah waxaa ka dhashay dilkaana ka dhashay ma jirin sabab kale ku kalifi karto eedaysanaha marxuumkaas inuu tuu beegsado keligii dil kasta u geysto sabab saas meesha ma taalin ayadana waa caddayn marqaatiyaasha la hor keenay maxkamadda hal marqaati baa la hor keenay wuxuu yidhi aniga goobta ma joogin buu yidhi keliya ninkan waan soo qabta hal marqaati oo qeexaya dil kas dhacay oo dhahayo waxaan u jeedaa Axmed oo la soo baxay biskooladiisa ma jirin marqaati asoo gongoreysanaya arkay xabadda ma jirin marqaati asoo ku taagayo ku dhufanayo bush ku siinaya arkay ma jirin taa macnaheedu marka waxa weeye dilkaasi wuxuu noqonayaa dil kama uu noqonayaa waafaqsan amar diidadaas iyo awooddaas uu adeegsaday waxay sababtay dilkaas sababtay سادرتي مو قدومي قرصوا المحكمة شرفت لي مركب في نقطة كاس لوطني أفراد حركة عقابته قيحتان كيسة شرحات ديسة يدعوا ماشي كده عضي وحنكون دفاعنا موكل كنجا قلب كأفر بقول أفرتني يشن وأنا جنا عقرسن هاي أسجن وقرسيه حركة عقاب سوماليات وقيحة يوديل كما قيحة هذا حشيد كنسو قد أنت حفيزك عضي مصاب نجا حفيزك عضي مصاب نجا وحأوري قرالك سنة أوري waxa la yaabaa waxa kala duwan xafiiska xeeyaanta cadeymaha uu maxkamadda ka hor isticmaalay eedda uu ku soo eedeynay eedanaha ee sanaha way kala duwan yihiin ayaga iska hor imaanay eedaysanaha wuxuu qirsan yahay dilkaas inuu geystay laakiin uusan kaska ahayn oo kama uu ka ahaa yuu qirsan yahay si waafaqsan qodobka 149 xeerka ciqaabta Soomaalidu uu qeexayo qiraal waxa la yiraahdaa qof fal uu geystay ama dambi uu geystay cadeyn uu qoray asaga markaas uu ka marqaati kacay macnaha uu qirayo inuu asaga dhibkaas geystay waxaan kaloo wax la taabto ayadana ahayd fiidiyowga la soo bandhigay meeshan fiidiyowga muna gudoomiye garsooyaal kama turjumayo dil ka saa dhacay CC camera duubtay aan aaminsanahay fiidiyowga rasmiga ah ama buskoolada qofku markuu dhufanayay muuqanayay ama ka dhacdo muuqanayay in laga soo tagay oo hal dhinac bas laga duubay la keenay fiidiyowga kuma qorno ma dhahayo Axmed baa qofkan dil ka soo u geystay kaliya wuxuu ka turjumaya dhacdada meesha ka dhacay ka turjumaya waxaa maxkamadda ka arkaynay halkaan ka arkaynay marxuumka ka hor in eedaysanaha uu wajaajaha celinayay uu furayay kaliya uu codkan ku celinayay kaliya uu san celinay marqaatiyaasha ayna kaas ka gudbaya waxaan u soo gudbayaa dhacdada gabadha walaasheena ayadana ku dhacday oo dhaawac 440 faqrada labaad oo ah dhaawac culus waxaan naga filan mudul gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh markii laga taga sheegashada gabadha laga tago baaraha kiiska saldhigu waa baaraha kiiska hal qof oo marqaatiya oo dhigi karo Axmed baa gabadhan ku dhuftay xabadiisa ku dhacday lama hayo waa mid koobaad waa mid labaad wuxuu ku fashil mabaaraha kiiska oo asagana waajib saarnayd inuu soo cadeeyo in uu raadiyo xabada ku dhacday gabadhan uu heli kara la baaro baaris la mariyo la soo cadeeyo gabadhan xabada ku dhacday ama soo ku dhacday waxa iskale Axmed baa iskale ma uusan sameeyay wuxuu ka leexjeclaystay uu aaday in uu maxkamadda la hor imaasay xiriyaalihiisa gabadhu halkaas marayso wadada geeskeeda marayso xabad ku dhacday marxuumka gabadha ku sigacday wax suurtagal wax aqli qaadan kara maaha baarisna kama uskiisa kama sameeyay warqadaha loo soo gudbiyay maxkamadda loo soo gudbiyay wuxuu ka turjumaysaa gabadhan way dhaawactay dhaawac soo gaaray cid gaarsiiyay xafiiska xeelaanta ee baraha laga rabay maysan kaliya waxay maxkamadda la imaadeen dhimashada iyo dhaawac way isku looreeyeen waxa iska ma gelin laba qof ay kala yihiin 400 marka 440 faqrada labaad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda maanta muwakkilkana lagu qaadi karo hal sabab baa lagu qaadi karaa si waafaqsan qodobka 110 124 163 xeerka ciqaabta in la cadeeyo si kaliya loo cadeeyo taas lagu qaadi karaa taasna xafiisku uu ka gaabiyay waajibaadka saarnaa asaga iyo baaraha kiiska way ka gaabiyeen muna gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh maadaama ay ku difaaceen muwakkilkana dilka ma ku difaaceen
shareecada islaamka iyo xeerarka dalka waxay qabaan oo jeedinayaan dil marka uu dhaco saddex baa loo kala qaybiyey dil kas ah kama iyo kas dhaaf ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana qofka laga dilay weli damka wuxuu u baneeyaa saddex mid inuu qaato inuu qofkaas iska cafiyo inuu diyo ka qaato ama inuu qofkaas qisaasto muwakilkay dhibkaas uu geystay wuu qorsan yahay dilkama uu ahaa waxaa wada fadhiistay ehladii laga dilay marxuumka uu ka dhintay iyo ehladii uu ka soo jeeday eedaysanaha kiiskan way ka wada xaajoodeen way wada fadhiisteen heshiis baa laga gaaray diyaa lagu heshiiyey waxaan maxkamadda usoo gudbinaynaa oo haynaa heshiis laba daraf ah oo diyadii lagu heshiiyey qayb la qaatay qaybta dhimanna qaabka loo kala bixinaya ay warqadda ku xusanta waxaan maxkamadda usoo gudbinaya haddayna u ogolaateen soo gabageysan kiiskayga heshiiskan oo ka soo baxay lowtaayo lagu magacaabo tala wadaag oo ku taariikhaysan 18 bishii 1 2026 oo ay labada dhinac heshiis u gaareen inay diyo ku heshiiyeen diyadii ayada qayb la qaatay qaybta dhiman ay ku qoran tahay qaabka loo kala qaadanayo waxaa ku xusan marka qofku u horeeyo ku qoran uu yahay marxuumka Allah u naxariistee aabihiis oo lagu magacaabo maxamed abuukar caabud lagu magacaabo aabihiis weeye iyo eedeysana wadonkiis maxkamaddu waxaan ka codsanay inay guddoonto heshiiskaas oo nagala qabto heshiis sidaa ka soo gudbo uuna guddoomiye garsoorayaal waqtiga inaan sii dheereeya ma rabo qodobka 119 xeerka afka ciqaabta Soomaaliya si waafaqsan gabagabadeyda maadaama xafiiska xeer dhaalinta waajibaadkii saarnaa oo ku guuldaraystay inuu soo bandhigo culays ama eed lagu saari karo muwakilkeena qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliya maadaama ku guuldaraystay waajibaadkiisii saarnaa culayska saarayay ee qodobada 110 114 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maadaama xafiiska xeeraanta uu soo bandhigi waayay cadeymo u dhigmo eedaha ayaga soo bandhigi waayay maadaama eedaysanaha markii loo akhriyay eedda uu iska bariyeelay si waafaqsan qodobka 104 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed uu yiri ani dilkaasi kama kasamba geysanayna dil kama aaqirsana inaa geystay maadaama labada dhinac waxaas dhacay iyo falkaas dhacay laga heshiiyey marxuumka Allah u naxariistay eheladiisana maanta ay raali ku yihiin inay diyo qaataan ay raali ku yihiin waxaan maxkamadda ka codsanaynaa saddex qodob ka codsanaynaa kow in maxkamaddu ay aqbasho difaaceena waafaqsan qodobka 445 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed aan iskaga difaacnay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed labo in maxkamaddu ay noo tixgeliso heshiiskaasi dhinacyada ay soo gaareen asalkii waliidamkiina uu raali ku yahay in diyo uu qaato qodobka saddexaad maadaama maxkamaddu ay weydiisay weligiina maxkamad aan la geenin dhowr iyo 10 sano uu ku jiray ciidamada rikoorkana aysan ugu jirin wax fal dambiyeeda ama rabshada aysan ugu jirin falkan falka u horreeyay tahay in xorriyadiisii ay siiso Axmed Maxamed Cabdulle maxkamadduna waa mahadsantahay dooda maxaa kaaga baxay dooda wax badan ay soo beertay taliyahay khayr Allah siya ani 2006 ilaa dhahdan booliiska ku dhex jiray waan shaqeynay wax eeda aan galin ma leh mudane gudoomiye tan dilka waa tan aan ku qiri way kaas ma ahayn waa kama soolada maana reer ilaaliyaha markii la hayo anoo hadda kor salaad sunna ay ku jirto tukanay sintay dhacday ama fakatay tubiyi maana hadda dhulka gaaro habad waa sibahaysa maxkamaddu maxaa ka codsanaa marka maxkamaddu waxaan ka codsanayaa inay heshiiskeena tixgeliso waa ka heshiinay diyaan ka heshiinay qaybna waa qaatan qaybna waa u dhimantahay maxkamadda sharafle taasaan ka codsanaa inay noo tixgeliso heshiiskeena gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho